u xiranaysid xijaabka eedadaada why u xiranaysid dharkeeda waayo eedadii ayaa ka soo araaratay fahmaysan سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل وحكى لا ليه مالهن حسبنا الله ونعم الوكيل أكبر كلمة وين واحد فقبلي سيدي يكون لمتي وحي أهاتا بقديدي وحي تاقناتا بقبلي ولا آسي وحا هادا قعنتا وكاقجرا بوليسكا بورها كبا وقعنتا كاقجرا وحانا رجينا ريرباي بقول إن عدالة طبقا أي هركيني دون الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولاشين جواهر حسين هل كان نقل سعتان وشان كانوا جواهر حسين إنه ما مشوا جواهر حسين ما أنت محينه هيسا أولا إلهي هو نحرسته مر والبا ودعينه هو يفرطون إن شاء الله إلهي إنه قبري جيدا واسعي إن شاء الله تعالى رحمة مر والبا ودعينه بإذن الله الكريم طلبات maanta waxaan u hayaa qiso xanuun badan oo ka dhacday buurha kabo waxay ka dhacday bishaan hadda soo dhaafnay oo maanta طلبات ay tahay 1 January ee ka dhacday buurha kabo aad ugu xumahay dhacdadan oo kale inay Soomaali ka dhacday Soomaalin mar walba ka dhacda inta la qariya ka badan inta la sheegina ka badan inta dhibaatada ay u geystaan gabdhaha ama wiilasha dadka soo korsada ka badan mar walba ka hadlaa hooyo haddii aad tahay hooyo la furay caruurtaada dhaxda u xiro haddii kale dhibaato walba isaga samir haddii kale caruurtaada waxa u dambaysa dhibaato iyo silac iyo jirdil iyo waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala in raali ka ani waxaan hadda afkayga soo qaban karin oo ictidaa lagu sameynaa kufsiya lagu sameynaa caruurtaada oo wixii la raba laga sameysana okay sidaas qofta yeelaysana hadda waa dumar adigoo kala ah waxay ka soo horjeedaa gabar ayadoo kala ah gabar ay dhashay ama wiil ay dhashay inay kuriso wax yar cunto ay siinayso ay dib ku qabtaa intaas oo dhan waxay u yeelaysaa reerkaas waxay rabtaa kaligeed inay isku balaariso waa gabar anagoo kala ah gabadha sidaas u galayso caruur gabar walaasheena dhashay sidaas u galayso gabar anagoo kala ah ragga way ku yartahay 99% inay taa sameeyaan okay فإذا أبو بكر وأفري تبنجر يا دلي aabeheda dilay والسبب وشيء مهم محله دلي فإذا طبعا سيدا ودا ognahay inta badan hooyadii aabaha hadii ay kala tagaan caruurta waxa ka haysta ama hooyadii ama aabahi فإذا إلهي سبحانه وتعالى wuxuu qadaray ma akhano hooyadeeda inay dhimatay inay noo shahay ma sheegi karo laakiin waa gabar 14 jir ah aabaheeda haystay waxay la joogtay eedadeeday la joogtay eedadeeda markii la joogtay waa 14 jir anagoo dhan waan soo wada marnay 14 markay tahay caruurta 14 15 ilaa 20 xitaa dhigi kari ilaa markaas waxay rabta ay ka gadan karto oo gurigooda ay joogto waxay qaadanaysaa dharka hooyadeeda ay qaadanaysaa wixii markaas cajibiyo kabahi ayagoo ka waaweyn ay qaadanaysaa hadana kabahi hooyadeed haday noqdaan kabahi walaasheeda ka weyn haday noqdaan xitaa waxay isku dayaysaa inay xirato kabahi aabaheeda waxay leedahay kuwaan oo yar way kugu fiicnaan lahaayeen hawa wada ognahay waan soo wada marnay anagoo dhan da'daas waa soo wada marnay iyo sida aan u nahay wax walba oo socdo sida aan u wada rabno waa wada ognahay marka anaga dumar hadaan nahay sheekaha soo dhaxgelina la dhahaa qisada marka ka sheekeynaysa laakiin qasab ay ugu tahay laano sheekada aan ka sheekeynayo waxay u baahan tahay in yaro dhiirigelin inaan soo geliyo anaga dadkan dhibaatada inay haystaa waxay tahay dhiirigelin waxa la dhahay ma dhageysan karno laakiin qofka Soomaaliga in oo maanta qabiilkiisa la amaanayo in oo maxarada diyaar u yahay inuu dhageysto laakiin wax dhiirigelin aan noloshiisa iyo naftiisa horumar gaarsiisinayo مرة بيو إنه دقيستو هذه هي المشكلة عندنا مشكلة إنها هي ستعطاس وح مسكح ذي أن إبرك دقا وحاء وح آخرين لأنت وح مسكح ذي أن إبرك دقا وحاء إن فائدة وح فائدة عن الديار وهن إن دقيسنو وح مشكلة إنها هي ستع وح كم التعوا وصوبت الضل كان أبوري وصوبت الضد كان دنك مسكح ذي إنسان أقول الاثنين وصوبت عرورتي أنا دنك مسكح ذي إنسان أقول الاثنين ودبعتها إنها هي ستع كم التعي دقيسي لأنت آخرين لأنت وحوان برا لكن ما أقرنه مشكلة صا إنها هي ستة أوكي وأنكو قصبنا إن يرو يرجلين أنجليو وأنكو قصبنا معلش رال النقطة مروا الباقي هذا الهسود حقلنا marka Allah musta'an fa isayar eedadeeda la joogtay eedadeeda markay la joogtay gabadha waa gabar yar ee iska ahayd 14 jir waa maadaama 14 jir ay tahay waxay u baahan tahay inay sida faceedo kale ay xirato markaas ay u baahan tahay waxay eedadeeda ka xiratay xijaab ay lahayd jalbaab ama xijaab sida u wada taqaanaanba
jilbaabkii markay xiratay faiso dabcan eedadii waxay u sheegtay aabaheeda waa ido qaylinayso gabadhaada waxaasay iga xiratay gabadhaada saasay yeeshay gabadhaada saasay yeeshay aabihii asigoona yamiin iyo shimaal ama midig iyo bidix uusan fiirinin gabadhiisa soo qabtay ma aqaano inuu midi ku qalay in oo jug oo kaga siiyay cunugta ilaan waa yar tahay lafa yar waaye xataa si xad ka bax hadii feer iyo haraanti oo ula dhaco laad oo ula dhaco dabcan way ku dhimanaysaa meel qaldan hadii uu ku dhufto mesela wadnaho kale hadii uu ku dhufto meelan markaas munaasib ahayn hadii meeshaas oo kale waa laga dhintaa dhaqsiya laga dhintaa hadii uu ku dhufto kale dabcan waxa laga yaabaa geeri degdeg ah inay meesha ka dhacdo المهم سيده حقيقه الله ما sheegin gabadha wixii oo ku dilay laakiin waxa la sheegay gabadha inay dhimatay ay u dhimatay gacantiisana ay ku dhimatay gacanta aabaheeda ay ku dhimatay gabadhaas faiza abubakar ibrahim waa ninka sidaas u galay gabadha sidaas loo galayna waa faiza abubakar ibrahim waxayna ka dhacday qisadaas 25 January waxay ka dhacday buurha kaba waa qisa hadda ugub ah wali ay taagan tahay qadiyadeeda فقبدي وحيودي متى جوك دنك عبهذا كجتماده سببتنا إيداده حجاب كذا إني حيرتي إيداده حجاب كذا إسرائيل كأهين عنو يرى أفرت ونجروا عنو يروى وحبة كما أوجا وحان إن لو دلايو إن محير هذا سي كلي وحي في رنيسة إن قرح هذا مركز أوسو ساراي وفعل هذا مركز بنانك يكون أركيسو إني كوجو فانتو مفهمين inta siyarta wuxuu gacantiisa ay ku sababsatay gacanta aabaheeda way u xirinaysid xijaabka eedadaada way u xirinaysid dharkeeda waayo eedadii ayaa ka soo araaratay fahmaysan subhanallah hasbunallah wa ni'mal wakiil wax kala leeyahay malahan hasbunallah wa ni'mal wakiil akbar kalma weyn waa فقبلي سيدي يكون لمتي وحي أهاتب قضيدي وحي تاجناتب قبلي ولا آسي وحهاد قعنت وكجرا بوليسكا بورها كبا وقعنت كجرا وحنا رجينا ررباي يبقول إن عدالة طبقة أي هركيني دونان ولي بسيدو عنوكتا rag badan ay u noqdaan dumar badan ay u noqdaan ninka dartiisa isleedahay ku kasbo ama maxay raad islahaysi adduunka ha ku weyso cadaalad inay hesho aan rajaynaa faa'iido yar insha Allah ta'ala oo walow aabaheeda uu yahay uu dhalay sida uu u dilaya si qalad ah haday ahaan lahayd way edeb darooday haday ahaan lahayd saasay noqotay mumkin waxa laga yaabaa inuu xaq u laan lahaa waayo aabaheeda waay mar walba wuxuu jecel yahay waalidka ama waxay jecel yihiin waalidka caruurtooda dariiq wanaagsan inay ku socdaan laakiin xijaabka eedada sida u xiratay in uu u dilo waxaan rajaynaa dawladda koonfur galbeed inay ka tirsan tahay jeclahay siyaasadda xoogaa isku ma fiicnin dawladda koonfur galbeed inay ka tirsan tahay jeclahay buurha kaba waxaan rajaynaa ana ka codsanayaa xukuumadda koonfur galbeed in abubakar ibrahim oo faiza aabaheed sababna u noqday gabadhiisa inuu gacantiisa ku dilo caalashaan jalbaab ay ka xiratay eedadeeda in ay cadaalad horkeenaan oo sharciga islaamka wuxuu waafaqsan yahay ay horkeenaan insha Allah ama xabsi ha noqoto ama maxay raadaasi dil ha noqoto waxay noqoto waaba ogahay Soomaali maba sameeynayaane waan rajaynaa in ay cadaalad horkeenaan in sida sharciga islaamka uu qabo ay waafajiyaan caruur walbo waxaan hadda meeshaan aan kaga soo gudbinayaa hooyo walbo ama caruurtaada dartiisa ku samir ilaa caruurta hadii laga qaato meel kale la geeyo waxay noqonayaan caruurtaada gumaysi adduunyay galayaan waxay jeclaanayaan nafta inay dhaafto aakhire ka jeclaanayaan noloshay ku jiraan intee caruur ani isoo ashtakootay maxaa u qaban karaa maxaa u sameyn karaa dhibkaas la igu haya dhibaatadaas ay igu taagan dhibaato intee caruur isoo dacwootay maxaa u qaban karaa waxba uma qaban kari kaliya nafteeda waxaan ka raadicin karaa in aan noqonin hooyo caruurteeda dayacda kaliya nafteeda waxaan kagala hadli karaa inaan noqdo hooyo caruurteeda cidla kaaga tagin kaliya waxaan nafteeda aan ku canaanan karaa dhibaato walbo oo lagu sameeynayo hadii markaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala ubad oo iga siiya ninkaas markaas aan isqabno in aan kugu caruurteeda dartooda aan ku sabro wax walba samacta waadaacad aan dhaho waan adeecay waan maqlay inaan dhaho caalashaan caruurteeda dartooda say iiga dayacmay waa sababta hadda maanta mesela Masar ku noolahay waxa arkaysaa dad ummi waa taqaaniin waa fahmi kartiin dad aan waxba qorin waxba aqrinin haddana waxay ku leeyihiin caalshaan awlaadi feen aruux inta aadaya ninkaygu waxaan waa dilaa ninka
wuu garaaca wax hore uu ka sameysana markaas wuxuu leeyihiin caalshan awlaadi bal fiiri caalshan awlaadi awlaadeeda dartooda raali ku noqona wax walba igu sameey law ana talaqta minno hadii aan iska furo ilmahayga way iga dayacmayaan ilaa naagta ninkaas guursanaayo ninka naagtaas guursanaayo ma rabiyo ubad uusan dhalin naagta oo ninkaas guursanaysana ma rabto ubad aydan dhalin yani qof walba wuxuu ku sabraa uu raali ku noqonaa dhibaato walba markaas dhaxtaalo familka caruurtooda dartooda waxay isaga noqdaan raali iyo waxay iskaga noqdaan wax aan markaas taxamil ama dulqaad ay u sameeyaan dhibaatada markaas guriga taal marka anaga maxaa noogu qasbay mar walba taharrab inaan sameeyno aan ka cararno caruurteena mar walba inaan caruurteena aanan ka fikirin aanan fiirin waa sababta hadda boqolkiiba 99 dadkeena waa jina ku dhaca u maleena waa waalan yihiin waayo dhibaato waalidka dhibaato familki waa la saga taga waa la iska dhala waa yani waxay noqoto noloshii dhanba wax iska iisa qofka Soomaaliga ama qofta Soomaalida inay dhasho xageeda waxba kama ahan inay guursato xageeda waxba kama ahan inay iska furto xageeda waxba kama ahan الرجال sidoo kale ninka sidoo kale inuu guursado xagiisa waxba kama ahan inuu furo xagiisa waxba kama ahan inuu iska dhaldhalo xagiisa waxba kama ahan waa dhibaatada ugu weyn oo bulshadeena dhaxtaala dhibaatada ugu weyn ee bulshadeena dhaxtaala ay kamid tahay marka waan rajaynaa inaan fahamno mawduucaas وانا رجينا فإذا يرى إنه إلهي سبحانه وتعالى عدالة وسين دونه آخرتيس وعدالة كسين دونه أدون كان إن شاء الله تعالى دولة كفر قلبات وحى إلهي سبحانه وتعالى إذن كجبريا إنه إذن كسوق هذا عدالة فإذا يرى إن شاء الله تعالى وان رجينا وانا إذن كفيلها إن عدالة هلي دون تقبل سيارته بإذن الله الباري وانا مع سنتين وشانل كيجا جواهر حسين أو إذن له بصور هذا مر والبو إذن هيا قصوين حقيقة دعاء إن شاء الله تعالى وأنا مع سنتهين قيري عفمات إبرواقع إذا رجينا وحيدنك عالسناء السبسكرايبنا إيسارتان شيرايد هذا أسحاتينا اللو ذاكتان وحي رأيقين كومنتي يقول ريفتان قيري عفمات إبرواقع إذا رجينا محاكلة بس جوهر مدوي إذن له مرول بسود هذا قاع مفورا قلبي فورا وجه فورا بسود هذا إن شاء الله قيري عفمات إذا رجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت ماشي إنه كدو واب إسكجع على استوى meeshaan studio weyn ka soo carar meesha ay imaad waa iska jeclaystay qeyr caafimaad rajayna assalamu alaykum wa rahmatullah